نبي عليه الصلاة والسلام سؤال بالويتي أي النساء خير أيالي هوانك يا أبو فعن أو أبو خير بضا مركز النبي عليه الصلاة والسلام وحو الشيء هوانتا صدحت المامود له إن أبو فعنتها التي تسره إذا نظر هوين إذا وحى أبو فعن كذا مركو إيغو فرح جلسة مركو أركع أيو فرحية وجهي كذا فرفران وفرحات بكسر نوينيسا وحو نبصدا كأركي أمهايو وناقة كم مغضى أيو كفرحية ويفرح جلسة وتطيعه إذا أمر هادو أمر سيو وح أمرنا ويأدي عيسى كهرمان ميسو أمر كيسان عاصن ميسو ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله بان النبي عليه الصلاة والسلام مرا أخوك خلاف يسو وأقضى المري ميسو وح اللالية وح أونعهايو وح أونعهاينا ووسو كراهية سنينا كو خلاف ميسو صمين ميسو هذي وحاسيين وح نفتي قسية نفتيدا وح اللالية وح وسرالي كأهين كصبين ميسو علاقة كلا يحرير كلا منا يا ميسو مالكي سنة وح ونعها يا كصبين ميسو مالك يولقوا إلى لي زوجة هذه حمان أو بقي ميسد يا علاقة كلا يحرير إن يالته هادو فيريا وكفر حيا هادو أمرنا أمر كيسا أي أدي عيسى أو قاعدانيس هوين تصيد سي زوجك أي جوري وتشوكته وإحنا معاه كم مقام الإله يكون شكريه سبحانه وتعالى وحسوق لي يا نبي واكير الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة الدنيا ذو الراحة راحة إذا وحى أبو قيمة بدن هوين الصالحة أي أبو قيمة بدن هوين تصالحة نبي عليه الصلاة والسلام جنة أيوب بشارين هذه تلمامها صلاح الله جهل والنبي يقول إذا صلت المرأة خمسها هذا صلاته إذا شنت أي تكت وصامت شهرها بشيدنا أي صمت وحفظت فرجها فرج كيدنا حمار أي كحفظ وأطاعت زوجها زوج كيدنا أي أضيع وركيس أي مقشه قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت وحلو إلى الجنة قال إرده هذا إرد أدون تتكجل أيال إلهنا ضلوا في رسول gurigeedii bay joogtaa janno ayayna kasbatay ayadoon aan tacab kaliya midna aan gelin shaqo iyo orod midna aan gelin oo gurigeedii oo ay joogtay ayay ku cibaadaysatay inay ilaahay awaamirtiisana ay qaadato zawjkeedana adeecdo markaas waxay intaa ku hesho ilaahay uu ku siiyay subhanahu wa ta'ala in loo yiraahdo jannada iridaa doontid ka gal maxaa ka maqan haweentaas ninka dhibaatoonayo xamaalayo shaqaynayo soo dhididahaya oo baxahaya hadii biilkii ilaahay u saaray ayadiina guriga yarka ay joogto dhexdiisii janno lagu siiyay haweenadaas maxaa ka maqan wax ka maqan adduunyo aakhira male hadii ilaahay iimaan iyo qanaaca uu siiyo waxa gabdhaha guryaha looga saaray oo jaamacadaha iyo dibadaha loogu dhoofinayo oo siyaasadda loo dhexgeynayo oo meel walba loola ordahaya waxa weeyaan xuduud yar iyo dheef yar oo adduunyaha lagu helo weey balu fiirso jannadii ay shaqaysan lahayd baa ka dayacaysa adduunyada ilaahay subhanahu wa ta'ala waajibka ninbuu u saaray zawjkeeda biil ku leedahay ayaduna janna shaqaysanaysa waa loo soo shaqaynahay jannana way shaqaysanaysa maxaa ka maqan taas waa in la dareensiiyaa gabdhuhu inay dareemaan in waxa weeyaan qiimahooda iyo sharaftooda uu yahay inay guryahooda ay ku nagaadaan ilaahayna ateecaan azwaajtoodan ay ateecaan ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هوانت صالحة دعاه wuxuu ku tilmaamay inay tahay mid aan ninkeeda dhibin wuxuu nabigu yiri alayhi salatu wassalam la tu'di imra'atun zawjaha fi ad-dunya haweenay adduunyada ninka kuma dhibto illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ain la tu'dihi qatilaka Allah hadibin ilaahay ku dile hadibin hadday haweentu ninkeeda ay dhibto haweentiisii xuurul caynta ahayd oo jannada uu ku lahaa ayaa hadlaysa markaas ay leedahay hadibin
فإنما هو عندك دخيل أكتاد كويت أيو كيهي سوغلوتي أيو أكتاد كيهي مرتبو كيهي يوشك أن يفارقك إلينا وحان دو إنو أنك نوصو كفارق أو نوي ماذا أيها دو إيها نبين أي كلها هوانت صالحة دا أمرك markay og tahay inay haween kale oo xurul cayna ay jawaab siinayso oo ay leedahay wuu ka soo tagayaa annaga si fiican u soo dhaweynayna hanaga dhibin ay leedahay taasay bay ka masayraysaa oo dhibkay ka ilaalinaysaa taas baaba masayr ba ugu filan in halka ay ka naadinayso xurul cayn ha dhibin agtaada martibuu ku yahay annagu noo imaan doonaa ha dhibin in lagu leeyahay hadday dareento waxa weeyaan dhibka ayay ka ilaalinaysaa haweenayda saalixada ah waa midda gurigeeda markay joogto waxa weeyaan ajaanib inay u soo galaan aan ogolaan iyaakum ad-dukhul ala an-nisaa hadday guriga imaanayaan dad soo booqanayaanna khalwadana ka ilaalisa xijaabka sharcigaana laazimta indhaheedana laabta weey hadday baxayso oo banaanka u baxayso haweenayda saalixada waa midda iska ilaalisa at-tabarruj tabarrujku waxa weeyaan haweentu quruxdeeda inay banaanka u soo bixiso oo ajaanibtu ay arkaan ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحيري ثلاثة لا تسأل عنهم صدح قولوا عندها ويدين عذابته ذو ويعضها إنها هلاك سمينا ويعضها عندها سؤال رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا نن مدحوينه مسلمين تخلافي وإمامك بيعدي سكبحي وجماعة مسلمين تفارقي وأصغوا عاصيا دنتي إيا أضون سيد كيلها كعري أو كبح صدي أو سيدا كل دنتي مدى صدحادي وحوية وامرأة غاب عنها زوجها هويني ننكيدي وكمق الناضي وكمق إيهي قد كفاها مؤنة الدنيا ظروفه الدنيا يبيلك الدنيا أو ككفارة قاضي ثم تبرجت بعده كبعدنا مركب مقيهي بيلكينا أوسيو تبرج سميسي قروح الذي صاب حسي بنانك أصاب بحري حشوتك كتكتي محاسن تيدي قروح الذي أجانب أموشسي هوان تائيضا صدح ذا هلاك سنتي بكم التهي عدنا هويدين أي نبي محمد لي عليه الصلاة والسلام هوان تهدون إنكو إياه حالات كستو أي كسو جنتهي حق ملا إن وحويان أي ديدو إلا هدي ديدو لعنت بواجو جبرية إلى أي كسر الله وكان النبي يقول عليه الصلاة والسلام إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها هوانتو هدي وابريستو وعاو أي بريضة أيضا فراش كي زوج كذا كهاجرتو كتكتي لعنتها الملائكة حتى ترجع ملائكة أيها لعنة يسه إلى أي صلاة حديث كلا وحويان اثنتان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما لما قال صلاة دودو مدحو هذا ما نافته معناه لما أقبله لما رفعية صلاة دودو لما قال صلاة دودو مدحو هذا ما نافته عبد آبق حتى يرجع أضم بحصدي وسيد كيسي كبحصدي إلى أوصال لابته وامرأة عصت زوجها حتى ترجع هويني ننكيدا كو أمر ديدي أو عاصصي إلى أي أصول لابطه وأي أتماد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هويني بأتمد مركز سؤاله ويديي مركو زوج كذا كور يستحقي كاتشوغا بيتري وحان أودا أو وح الله وحان أودا كمان قابي أنا أصمعي مركز سوحو يري النبي عليه الصلاة والسلام فانظري أين أنت منه وحاد إكتا ماشى زوج كاجا كتاجنتهاي هي وحا أدو قبتين يسيدا أدو أضيعسنتهاي يسيدا أمرك يسوق قادني يسيد فإنه جنتك ونارك زوج كاجو وجنة هذه وأنا نار هذه أقول ساسا النبي عليه الصلاة والسلام هويني اللالية هويني دي نكيدو لمته أيضا الزوج كيدو رالي كيهاي النبي عليه الصلاة والسلام جنة أيوب بشاري مركب موقف كاسي وحو نبريا وحويان قبلها مسلمات كأه إنay dareemaan xuquuqda waaweyn oo azwaajtoodu ay ku leedahay
waxaana ogaan karta oo dareemi karta oo fulin karta gabar saalixad ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku manaystay aliimaan waalcamal asaalix tarabiyo iyo akhlaaqna lagu barbaariyey si mowqifkaa loo gaaro loo helo waxaa laga yaabaa rag badan inay raadinayaan azawjatu asaalixa xaggee laga helaa waaba la la'yahay zamankan lama arko ayaa la leeyahay haddii ayagu yaraadeen ragga saalixiinta ma badan yihiin ayaguna ma badna haddii ragga saalixiintaahi ay badan yihiin gabdhaha saalixaadkaayna waa badan yihiin guriga aa ku soo kortay adigu bay ayaduna ku soo kortay hadduu guri diina ahaa wiilkana salaax baa loo rajaynayaa gabadhana salaax ayaa loo rajaynaya si loo helo waa inaa adigu waxa weeyaan salaax la timaadaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u laabataa oo adigu naftaada aad xisaabisaa adigu saalix ma tahay si ilaahay subxaanahu wa tacaala mid saalixada ilaahay kuugu arsaaqo naftaada dib u muraajace ilaahayna su'aalo middaas wanaagsan oo khayrka badan oo waxa weeyaan nolosha fiican kula qaadanaysa ilaahay inuu kugu arsaaqo weydiiso salaaxa iyo wanaaggana la imow kii hadda haya waa inuu ku didaalaa inuu ilmahaas tarbiyadooda iyo salaaxooda uu ka shaqeeyo ilmaha waa in la geeyaa macaahidda diiniga ah iyo madaarista qur'aanka muhiimadda waa koowaad waa in middaa la siiya ee aan waxa weeyaan shayga maadiga ah oo maanta aynu arkayno gabdhaheenni meesha xishoodkoodii uu marahayo akhlaaqdoodii ay marayso ayagoo guryo fiican ka soo toosay ayaa waxaa fasaadiyey meesha la geeyey ayaa fasaadisay diinkii baa la barayaa khayrkii baa lagula dadaalayaa laakiin wax allaaliya wixii waalidku ay bareen iyo waxay u sheegeen madarasada iskuulka ama jaamacadda ayaa ka mayrtay oo ka dhaqtay waana naadir in la helo jaamacaad wanaagsan oo gabdhaha lagu halayn karo aad bay u yartay kadaalika sidoo kale waalidiinta in badani gabdhahooda warba uma hayaan waxa ay ku sugan yihiin war kama hayaan meesha ay marayaanna war kama hayaan jaamacaddaaba laga yaabaa inay oga naxariis roon tahay in badan ilmahooda rag macallimiin jaamacaadka ka abaa ii yimid waxayna yidhaahdeen mar walba akhlaaqda ilmaha ayaan ku didaalnaa gabdhaha iyo wiilashaba dharkan khafiifka ah oo xun haddaan ka dhigno mar labaad baa loo soo gadayaa wiilkii suu rabo u soo labisanaya lacagtan fanka ayaa bixiya waalidkii baa fanka bixinahaya oo dhaqaalihii bixinahaya jaamacaddii way la diriraysaa waalidkiina waxa weeyaan markii laga dhigo oo loo diido mid kale u soo gadaya kuwaasina waa jiraan waalid sidaas ah jaamacaad waxa weeyaan ayaguna waxa weeyaan akhlaaqda in badan ilmaha ka dilahayaana aad bay deegaankeenii dalkeena ugu badan